wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. waa habeen Khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 bisha 2 ee Febraayo sanadka 2021. qodobada wararka caawan idiin helno kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirkii mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliya uga soconayay hotel Dikaale oo la soo gabagabeeyay iyo qodobo xasaasi ah oo laga soo saaray shirkaasi. waxaan idiin soo gudbin doonaa mucaaradka oo laga hor istaagay in ay bari banaan baxaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre oo taageerayaashiisa u sheegay in uu baaqday banaanbixi bari ka qabsoomi lahaa magaalada caasimadda ee Muqdisho. mucaaradka oo ka tanaasulay arrin si weyn looga filayay in aysan ka tanaasuli doonin. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka oo isku fahmay in dib loo dhigo banaanbaxyada. qodobadaas iyo waliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee shirkaas ee goor dhaweed la soo gabagabeeyay ayaan caawa intiisa badan ee warkeena ku soo qaadan doonaa. marka la ku soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahayna inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalaaba halkan aynu soo gelino. waxaa goor dhaweed ee daawadayaal la soo gabagabeeyay shir xasaasi ah kaasi oo u socday xubno markaasi ka tirsan midowga murashaxiinta iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wafdi uu isagu hogaaminayay. shirkan oo isagu qaatay saacado aad u fara badan ayaa waxaa markaasi laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in xubnaha midowga murashaxiinta ay korjoogteen ay ka noqdaan shirka madaxda dawladaha xubnaha ka iyo dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir, in dawladdu ay ka garaabto raaligelin ka bixiso weeraradii loo adeegsaday ciidanka dawladda ee lagu qaaday madaxweynayaashii hore iyo banaanbaxyaal ay horkacayeen qaar ka mid ah xubnaha midowga murashaxiinta, in guddi loo saaro wixii dhacay 19 February. waxaana guddigaas ee dhanka dawladda ku matali doona gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka amniga, halka ee dhanka midowga murashaxiinta uu ku matali doono guddigaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Daahir Maxamuud Geele. in banaanbixi lagu balansanaa ee cilaamiyeen xubnaha midowga murashaxiinta dib loo dhigo muddo 10 maalin ah, amniga iyo wax walba oo banaanbaxaas ku aadanna ay dawladdu sugto si nabad ahna uu ku dhaco. arrimahaas iyo arrimo kale oo xasaasi ah ayaana la isku soo hadal qaaday oo la isku fahmay. shirkan oo isagu saacado badan qaatay ayaa ugu dambeyntii soo gabagaboobay, waxaana sidoo kale arrimahaasi looga mahad celiyay mucaaradka Soomaaliya oo tanaasul weyn iyagu muujiyay. dhinaca kale waxaa guddi ka kooban min 3 xubnood loo saaray sii wadista arrimaha harsan ee xal u raadinta khilaafka doorashada. guddiga oo min 3 xubnood ka kooban waxaa dhinaca murashaxiinta ku matalaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Daahir Geele iyo Mustafa Dhuxulow, halka dhinaca dawladana ay ku matalayaan wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Al-Cadaala. shirkan oo isagu ahaa mid saacado badan qaatay ayaa waxa uu magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Dikaale uga soconayay midowga murashaxiinta mucaaradka ah iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana la sheegay in mucaaradka Soomaaliya ay sameeyeen tanaasulkoodii ugu weynaa ee ku saabsan arrimaha ay ka cabanayeen marka loo fiiriyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, oo ay ugu weyn tahay arrinta ku saabsan banaanbaxyada ay qorsheynayeen inay ka qabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaa la qorsheeyay in banaanbaxa mucaaradka la qabto muddo 10 cisho kadib, markaasi oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay sugi doonto dhammaan nabadgelyada iyo ammaanka dadka banaanbaxa dhigaya. dawladda Soomaaliya ayaa iyadu waxay hore u diiday in ay banaanbaxaan mucaaradka, arrintaasi oo ay si weyn uga biyadiideen xubnaha mucaaradka ah oo iyagu ka soo horjeestay in banaanbaxooda hor istaag lagu sameeyo. arrintaasi oo noqotay mid markaasi caqabad ku noqotay dhammaan dadka shacabka ah iyo waliba sidoo kale isku socodka gaadiidka iyo midka dadweynaha, maadaama isku soo baxyada ay qorsheynayeen mucaaradka ay ka hortagayso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. qodobadan lagu heshiiyey markaasi ka kooban ilaa 3 qodob ayaa waxa ay kala yihiin in markaasi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumaddu ay garowshiyo ama raaligelin ka bixiso gafkii ka dhacay iyo waliba sidoo kale weerarkii lagu qaaday hotel Maa'ida oo ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in markaasi dib loo dhigo banaanbaxa ay qorsheynayaan mucaaradka iyo in guddi loo xil saaro dhacdadii 19 bishan aynu ku guda jirno ee February ka dhacday magaalada caasimadda Muqdisho.
guddiga baaritaankan sameynaya ayaa waxa ay isugu jiraan xubno ka tirsan ee dowladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale kuwa ka tirsan midowga ee murashaxiinta mucaaradka ah. waxaana dadka siyaasadda ka hadla ay rumaysan yihiin in heshiiskan uu yahay heshiis taariikhi ah, isla marhaantana sidoo kale ay mucaaradku iyagu sameeyeen tanaasul weyn. dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre oo isagu galabta markaasi isku soo bax ka sameeyay halka ay ka soconayso ololihiisa doorashada ayaa waxa uu ka hadlay isla marhaantana soo hadal qaaday banaanbixii berri la qaban lahaa. waxa uuna taageerayaashiisa goor dambe oo caawa u sheegay Xasan Cali Kheyre in heshiis laga gaaray arrimahaasi isla marhaantana dib loo dhigay banaanbaxaasi. Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu sheegay in heshiis laga gaaray arinta ku saabsan dibadbaxyada ay dhigayaan mucaaradka. waxa uuna taageerayaashiisa u sheegay in banaanbixii beri qabsoomi lahaa uu gebi ahaanba baaqday, sidaasina ay ula socdaan dadka la dhacsan siyaasadda midowga murashaxiinta mucaaradka ah. Xasan Cali Kheyre oo khudbad jeediyay ayaa waxa uu sheegay in markaasi dowladda iyo iyagu ay ka heshiiyeen arrimaha ku saabsan dibadbaxyada iyo waliba sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. hadalkan ka soo yeeray Xasan Cali Kheyre ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo heshiis markaasi ay gaareen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta, isla marhaantana ay ka wada heshiiyeen arrimo si weyn loo hadalhayay, isla marhaantana bulshada Soomaaliyeed ay aad uga fajacsanayd in arrintaasi xal laga gaaro. waxa uu hadalkiisa sidoo kale imaanaya iyadoo berri oo Jimcaha 26 bishan ay hore u cilaamiyeen midowga murashaxiinta banaanbaxyo ay ku dhigayaan magaalada caasimadda Muqdisho, gaar ahaan daljirka Daasoon. arrintaasi oo markale laga cabsi qabay inay rabshado isku bedeli karto si la mid ah rabshadihii dhacay toddobaadkii hore 19 bishan. waxaana shirkan uu noqonaya mid ka farxiyay dhammaan shacabka caasimadda ku dhaqan. waxaana sidoo kale caawa jawiga Muqdisho uu yahay mid aad u degan markii loo fiiriyo toddobaadkii hore habeenkan oo kale oo dhammaan la xiray wadooyinka iyo jidadka muhiimka ah ee soo gelayay halka loo yaqaano daljirka Daasoon. jawiga caasimadda ayaana caawa waxa uu yahay mid aad u nabdoon, dadkuna waxay hadal hayaan heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo murashaxiinta mucaaradka ah. safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa mowqif aan la filaynin waxay ka qaadatay banaanbaxa ay ku dhawaaqeen murashaxiinta mucaaradka, isaga oo markaasi ay walwal badan ka muujinayeen halista qalalaase ka dhaca magaalada Muqdisho 26 February oo biri ku beegan ummadda Soomaaliyeed. fariin ka soo baxday safaaradda UK ee Muqdisho ayaa lagu yiri waxaan ka walwalsanahay halista qalalaase ka dhaca Muqdisho 26 Febraayo. Ingiriiska wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan isxakameyn ayna ilaaliyaan xasiloonida. fariinta safaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in wada hadal siyaasadeed uu yahay jidka kaliya ee Soomaalida hore ugu socon karto halka iska hor imaad iyo qalalaase la sameyn lahaa. mowqifka dowladda Ingiriiska ayay hore murashaxiinta mucaaradka ugu dhaliileen in uu markaas u janjeeray dhinaca farmaajo, iyadoo fariintan ay xaaladda uga sii darayso. iyadoo Ingiriiska oo ah dowlad dimuqraadi ah ay qalalaase ku tilmaamayso banaanbax ay ku baaqeen murashaxiinta mucaaradka. safiirkii hore ee UK u fadhiyay Soomaaliya Ben Feder ayaa waqtigiisu dhamaaday, waxaana xilka dhowaan la wareegaysa safiiradda cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulkiisa Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii madaxweynaha maamulkaasi uu in muddo ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Lafta Gareen oo u yimid magaalada Muqdisho inuu ka qayb galo shirka wada tashiga qaran ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kadib markii uu fashilmay shirkii wada tashiga ahaa. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, xarun ku meel gaar ahna u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweyne Lafta Gareen ayaa safar maalmo qaatay waxa uu ku joogay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in dib uu isaga laabtay magaalada Muqdisho isla marhaantana uu dib ugu laabtay Baydhabo kadib markii shirkii la isugu yeeray madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ka soo qaybgali waayeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. horey madaxweyne Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyadoo ay aqbaleen 3 madaxweyne oo kaliya oo markaasi madaxweyne Farmaajo iyagu si weyn u taageersan, waxaana shirkaasi diiday inay ka soo qaybgalaan Puntland iyo Jubbaland.
guud ahaan wararkii oo aad kala socoteen caawa channelkeena xulashada wararka intaas ayay ku dhan yihiin saaxiibada aynu jecelnahay warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo isma dhaafno kulanti dambe oo xiiso leh